waa wiil yar oo hooyadii dhashay ay uga tagtay isbitaalkan Wardi degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir galabkii Jimcaha ayaa ay timaaday isbitaalkan habeenkii ayay dhashay durbana isbitaalka ayaa ay kaga tagtay markii taqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee isbitaalka Wardi ee UNICEF ee degmada Xamar Jajab ay arkeen cunuga yar oo ooyaya aysan la jirin hooyadii ayuu ku dhashay tuhun ah in hooyadii ay baxsatay sida ay qaar ka mid ah howlwadeennada isbitaalka noo sheegeen KNN ayaa u kurgashay sida ay ku dhacday cunugan oo ay hooyadii uga tagtay isbitaalka Maxamed Aadan waa takhtar dhanka caruurta ee isbitaalka Wardi waxa uu ka sheekaynayaa sida ay iyagu u dareemeen in hooyadii ay cunuga yar uga dhuumatay isbitaalka Aadan oo shaqeeya hay'adda Wardi Community Hospital kana shaqeeya isbitaal Wardi una qaabilsan qaybta caruurta hooyadii dhalaanka una qaabilsan cunugani hooyadiis waxay noo imaaday maalintii Jimcaha galabta 9 saac kadib waxay markii xaaladeedii waxa noola muuqatay inay tahay fool kadib markii qaybtii dhalmada la geeyay waxa uu fuuday Ilaahay inay dhasho kadib markii dhashayna cunugeedii oo nabad qaba iyadoo nabad qabto waxaan geynay qaybtii jiifka markii geynay ka bacdi hooyadii iyadoo xaaladeeda okay ay tahay ayaa xilli habeenkii 3 saac fiidnimo ay waxay sameysay inay iska baxdo iyadoo qof la tashan aynu u sheegin kadib markii aragtay inay baxday waxaan sameeyay in cunugii aan xanaaneyno anagoo u sheegnay wargelinay agaasimaha isbitaalka iyo ku-xigeenadiisa kadib markii intaas u sameynay waxaan sameynay cunugii waxaan u sameynay maamo isbitaalka shaqaalaha caafimaadka ka tirsan markaan u sameynay cunugii maamadii kafaala qaaday mas'uuliyadiisana qaaday Ilaahay ka sokow markii intaas loo sameeyay cunug waa dareen xambaarsan murugo gooni ah in dhalaan dunida jooga saacado yar ay isbitaalka uga tagtay hooyaday dhashay waana xaalad adag marka laga hadlayo korriimada cunuga hooyo Xaawo oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka ayaa garatay in ay iyadu koriso cunugan yar hooyadii hadee iyadaaba ka tagtay iyada anta dhashay xanuunkiina ogeeday ka tagtay iyadoo cidna dhibaateenina isaga maalinta Khamiista maqribka ee camal ay ka tagtay galabtii dhashay Jimciha marka aniga maalinta Sabtiga oo imid maamulka waxay dhaheen cunugaas soo qabo waa soo qabtay marka waxaan ku dhahay ana hayna insha Allah Ilaahay yiraahdo wixii noolaanaya cidna ma dilayso wixii dhimanaana cidna ma celinayso yaa cunug hadda la dhalisoo ku noolanaadib hooyadii ka tagtay oo maxay naas u baahan oo maanta naas raadinayo oo hooyadii naas kala tagtay hooyada wiilka dhashay isla markaana isaga tagtay ayaa magaceeda ku diiwaan gelisay isbitaalka Xamdi Macallin Xasan sida ay taqaatiirta inoo sheegeen falalka noocan ah ayaa muddooyinkan ka dhacay Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka mid ah waxaana badi ay ahaayeen in ilmo yar lagu tuuro wadooyinka dad isugu jira bukaanada ehelada bukaanada iyo howlwadeennada isbitaalka ayaa aad u hadal haya tilaabada ay hooyada dhashay cunugan loo bixiyay Maxamed Wardi habeenkii Jimcaha ee ay sabti soo galeysay isbitaalka ay ku dhashay uga tagtay